waxaan idinkugu imaana marka hore inaan idinku dhiirigelino hawshii hore oo halganka fiicna ahay oo qabateen oo halganka oo halkiisa ka sii socdo. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute oo muddo ku sugan jiida hore ee dagaalka deegaanada Hirshabelle ayaa mar kale la hadlay kooxaha deegaanka. qorshahan ayaa qayb ka ah nidaamka lagu dhiirigelinayo macawisleyda si loo mideeyo aragtida dagaalka ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Shuute waxa uu mar kale sheegay in furimaha uu sii joogi doono inta laga xaqiijinayo natiijada howlgallada ka socda Hirshabelle. waxaan idinkugu imaana marka hore inaan idinku dhiirigelino hawshii hore oo halganka fiicna ahay oo qabateen oo halganka oo halkiisa ka sii socdo. dadka deegaankani waa halgamayaal taariikh fiican ku leh dirirta iyo dib u xireynta dalka khawaarijta looga xoreynayo. dulmiya diideen oo ka dhiidhiseen umad xaq u dirirha tihiin. shaqada aad qabateen waxay ahayd shaqo dawladnimada lagu kaabayay qarankana lagu difaacay ahayd. kuwa idinka soo horjeedana waxay ahaayeen daalimiin isku bahaystay inay burburiyaan dalka iyo dadkan wax kastoo midiyahay. nimankaasi ninkii la dirirana jannow gala kii dilana jannow gala kii dilana jannow gala. natiijada markaan way fiican tahay. waxaa la rabaa inaa idinka hormuud ka naqataan hor kacdaan dadkii oo hore loo socdo oo waxaa la rabaa lagu jabhadeeyo iyaga siday u dhaqmayaan loola dhaqmo oo la iska qabtaan rabnaa. annagu waxaan rabnaa inaan idin caddayno inaan maxaa la yidhaahdaa aan diyaar nahay oo aanan meelaan u soconay aysan jirin oo ay ag fariisanayno oo idila joogayno meelaan u degno dib u soconana aysan jirin. dadka deegaanku ha noolaadaano xaqudirku ha guulaysto ciidamada qaranku ha guulaystaan Soomaaliyana ha guulaysato. aad u mahadsantiin. Nimcaar Doofe, Muqdisho.